كده سفرنا الناس التريفل hormuudi deeno weeyaane lawayka hablayagu waadikii horeyo xornimo hamigooda weeyaane kushawayne garaac gobciga kala bax galadido ku helay gafkaya kuugu tumo kushawayne garaac gobciga kala bax galadido ku helay gafkaya kuugu tumo safarkii badda iyo Nasir Travel Agency. Nasir Travel Agency waa shirkadda safarada xamuulka dalxiiska badda cas. waxa ay safro aan kala joogsi lahayn kugu geynaysaa Boosaaso, Buruc, Qandala, Bacaad, Butiyaalo iyo Gardafuur. waxa aad si dhib yar ku maraysaa badda safar saacado ah ma lahan wax ruuxana waxana ku dalxiiska si raaxo leh. dhammaan waxa lagu diyaariyay saxiimadaha Nasir Travel Agency adeegyada loo baahnaa sida jaakadaha dabaasha qiimo jaban oo lagu geynayo meesha aad rabto. maali wanaagsan badda ayaanu saaranahay saa u jeedaan safar weeye saaxiibkii Cabdulle balqalle aad iyo la socdaa asxaab kala gadaasha joogta maali wanaagsan shirkadda Nasir Travel Agency ayaana wada goosaan ku jeednaa anaga waa naga arkaa filig waa saaranahay doon kale naga horeysa waa taa halkaas ay maraysaa iyaduna waa saximad kale hadda waxa aan joognaa goob ka mid ah meelaha laga raaco Nasir Travel Agency waa marsada degmada qadiimiga ee Qandala badda cas xilligan oo kale waa laga xagaa baxa dad kala duwan ayaa ka ambabaxaya degmada Qandala safartada badana waxa ay u socdaan in Boosaaso ilaa gobolada kale dalka Boosaaso iyana waa laga xagaa baxa waa marinka ugu dhow ee ay bariga ka aadi karaan waxaan saaranahay shirkadda Nasir Travel Agency oo safarada iyo dalxiiska Boosaaso to Qandala laba dooyada ayaa saaranahay shacab badan baan nahay Boosaan ka nimi waxaan nimi Qandala marka bal afkaartooda waxaan weydiinayaa shacabka saaran doonyahan waa saxiimadahan soo raacay safarkii ay soo galeen safar raaxo leh soo dhawaada waxay waxa weeye Cabdullaahi Axmed Waabeli waxaan maanta saaranahay shirkadda safarada badda ee Nasir Travel Agency waxaan ku soo galay safar gaaban oo kaga nimi waxa weeye Boosaaso Qandala waxaan safar raaxo leh waxaan ku soo maray saacad hal saac iyo bar magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Ismaaciil maantay waxaan soo raacnay shirkadda safarada dalxiiska badda ee Nasir Travel Agency waxay ka baahi tiraysaa ama ku fududeynaysaa safarada badda Boosaaso ilaa Qandala ilaa inta u dhaxaysa iyo gobol baa u baahan tahay oo dalxiisa waana fududeeyaha badda ee safarada shirkadda safarada badda Nasir Travel Agency maanta waxaan ku raacnay dalxiis yar oo nagu geeyay magacaygu waa Nicmo Ismaaciil Axmed waxaan ka soo safray Boosaaso waxaan imaaday degmada Qandala waxaan soo raacay shirkadda Nasir Travel Agency maasha Allah safar raaxo leh waxa muddo kooban ba soo maray waxaan ku soo maray hal saac iyo bar muddo kooban safar gaaban ma soo galay dalxiiska aan kaga nimi Boosaaso saxiimadu waxay u socotay wax yar oo kooban saacad iyo bar ah maasha Allah safar raaxo leh Qandala nabad maadeen Qandala nabad alada Boosaaso waxaan soo safray degmada Qandala degmadeeda hore qadiimiga ahayd aan xiisay waxaan soo raacay shirkadda Nasir Travel Agency oo u fududeysa safarada waxaan ku imi hal saac iyo bar
shirkaddan waa shirkad weyn waxay ku fududeysaa safarada waxa weeye waxaan jeclahay bulshada meel kasta joogto inay wax u soo dalxiiso degmada Qandala waa degmo dhow moodna degmo fog وايد سلام أصحابتا سفر رحلة أيام نوصل دماغي أن كغني ببوساسو هذا واحد نبي دقمة قندلة واتاس شركة ناصر ترافل أجنس أيام صور رعني دون تنا أيام لسعودي صحيمتنا أيام لسعودي صحيمتك لنا واتها ويصوص عطايد الركاب بيسدا هذا أيام بحجر جونا مقالة ولبا دارت عدد واتن قندلة إعانك كوا هاي بدع عجها قل مهرب صيام فريسدنا بدع عجها قل بهم ودارت عدد قندلة قطالة صحيمتك اللي دد بيسدا يدنا براسك يصوت ورسنا ذا براسك بدل القطورة هذا أيام حيب تودك دونا نلا صعود أصحابي كورة سفر السوق لما سفر السوق سفر راحة واي بوصصان كان نبي هذا واحد جونا قندلة حيبت من هذا مرينا أصحابي هذا صحيمة هي وحدة بوصاصو وكا waxaa loo dhigayaa jaranjaradaas waxa weeytay dadku soo degi lahaayeen si dadka biyo u gaarin halkan ayay soo istaagaysaa ka bacdina dadku jaranjaradaas kaga soo degan waa loo sii diyaarinayaa ka badan baa saaran ila socdo bal sida looga soo dego Qandala iyo deegaano badan oo hoos yimaada inta badan ku teedsan badda cas ma lahan jid dhanka bariga ah waana taas mid fududeysay inay inta badan adeegsadaan safarada dhanka badda ah ximad ka soo shiraacatay magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa hadda ku soo xiratay marsada degmada Qandala banaanka waxa uu jooga dad u diyaarsan shirkadda waxayna sitaan jaranjaro loogu talagalay inay dadku ku soo degaan si aysan biyaha baddu u taaban caruur dhalinyaro haween iyo duqay ayaa saaran taas oo loogu talagalay in aysan biyaha baddu taaban iyagoo nadiifa ay ka soo degaan saximada sidaasna ay ku yimaadaan bariga سفر بانو سوق البوسات هذا كسب معنا واحد كسبنا قندلة مركب ما شاء الله شركة شركة بلارن وواحد يا مقعد الناس ترافل أجنسي قيب بدن بيلها هاي قيب دلحيس بيلها هاي وحوي دلحيس حيبها قيب واحد سفر الركابة هذا قاب كمان وركاب لبا وحنا هالدومود بهذا النهاية وصنعنا له مركب ما شاء الله سفر ونوع عسوي سفر كان واحد من المدة لحسنا بان ونادر واحد بالوني لبكون إيو وحوي لحية تمك من بلوني مركب ما شاء الله سفر واحد مركب دم واسيس يادنا وحوي مركب واحد بلون سفر جاجابنا وحوي ركابي وحا مقدم واحد كوسس يادنا سفر ديرية سيادة كوي ما تصارنا كرتو واحد كوسس يادنا سفر دلحيس سيد وحوي هذا واحد جينا ذاتك ميل يبيه كله قندلة مدة وجدوا يحكوا هاي دول بكله مركب سفر ما شاء الله وحوي وسفر لما هديوي دلحيس كي وحوي دول بانو جينا لو دلحيس دول وحوي قديمية سيد خوري قندلة كرتو بيه كله مقالة قندلة واحد هذا مقعن كودك مقالة تاريخية مقالة قديمية ودول بانو لو صد الحيس تقول سيد الشركات دي كلهم كوريتو أريدية وحوي دار تعالوا وحيد اسمه قرن كورها خوري وحوي هذا تقدون إن شاء الله أكيدونتو نظام في قاف كودستان يا ودلك كود الحيسينو دتك عن دقان قندلة ودنا جارهان وحوي مرك ما شاء الله سفرة وحوي عادي لو بقديم هذا وحوي أنا وحوي كسب بلون بوساسو وحنو كنا بوساسو بعاد بوساسو بورغاون بوساسو بوساسو قندلة وسفرة نوبة لكن ومرة أن سيسي هذا واجد أيو علوله يقردفوه يسقدمنه واجد سفرة نوعاسو وحوي حابة أيو بريدة أيو دربة أيو سيجارسينو لكن سفرة يوم كوبي لا قندلة لا بوساسو